asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabteyda qaaliga isku soo noqod wanaagsan waa maandeeq caanood iyo mar kaleeto. asxaabi sida nooga hore nooga barateen janaalkeen wuxuu ku saabsan yahay skin care, hair care iyo family care. maanta family careka ayaan ku dhex jirnaa. akhyaare maanta ciyaalka waxay leeyihiin tartamo orodka ciyaalka la ordisiinayo, xoogaa qabowya yarna waa jiraan. marka akhyaare waxyaabaha waxaan rabaa maanta inaan la sheer gareeyo qaababka ciyaalka tartamada marka ka galaan xafladaha baadhiyaasha, maasha allah waxyaabaha ay ciyaalka ka faa'iidaan. haddaba waa kana maasha allah ciyaalkii halkan baashaalayaan, gareedba mar uu soo baxayaa, fasalba mar buu soo baxayaa. hadda waxaa ugu horeeya first grade iyo fourth grade ugu horeeyo. marka waan kasoo qayb galnay, lama soo kala harinaan ku dhahay, waa isu soo jiina reemaan deeqoo dhan aan ku dhahay, wixii guriga ku jiroo dhan ma jirtaan ku dhahay. marba hadday kingdom family ay tartan leeyihiin waa in laga qayb gala akhyaarey. marka waa kaasaa maasha allah akhyaarey ciyaalaha tartamadooda inaad kasoo qayb gashiin ayaan idin rajeynayaa. waxyaabo badan ayay ka faa'iidayaan, ilmihi niyadda u dhismayso. hadda waa kaas akhyaarey, marka waa yaraa qaar waa inay daarayaa oo sida ciyaalka excited u yihiin. fadlan haddaad janaalku cusubtahay subscribe-ta naga hilmaamin, adigana free ku tahay, anigana dhiirigelin ayay ii tahay. marka akhyaarey hadda ku raaxaysi maqan xabadkayga amiirkaygana waa kaasa maasha allah orodkiisa baxaayo. marka hadde ku raaxaysta, hadde war le maa wadaynaa la socod wanaagsan. All right, we got another first grade class coming out. Make some noise for Bert Hot Dog. Make some noise. All righty, make some noise for McEwen's White Tiger. Make some noise. It's time for the one, the only, Team Taki. maasha allah, marka qaylada iyo sawaxanka waa ku raaxaysateen. subax aroori anaga noo tahay 9 am noo tahay, ama 3 saac barsa u taqaanid. marka maasha allah halkaasaan ku jirnaa aniga iyo beebigeyga yariiska iyo amiirkeyga amiir cumar. waa kaas halkaasaan ku sugaynaa. marka maasha allah halkaasaan ciyaalka ka daawanayna, ayagana aaday ugu farxeen. akhyaarey waxaayna dheela hurdada ka toosa, haddaa hooyo tahay, haddaa aabbo tahay, hurdada ha laga tooso. maanta waxyaabo badan cajaa'ib ayaan kusoo arkay. ujeedaa ajaanibta saasay u dhooban yihiin, ciyaalka kama maqna xaflad hadday leeyihiin, hadday baadhi leeyihiin, hadday graduation ama qalin jabin saa u taqaanid ay leeyihiin, marnaba kama maqnaadaan. haddaba akhyaarey waalidiinta waxaan usoo jeedin lahaa inay ciyaalkooda waqti u helaan. ilma yaraa haysataa ku marmarsiyoonin, maasha allah fiiris u farxayaan. fourth grade princesteeda waa taas aad ayay u farxeen. ilmaha maasha allah soomaalida meesha joogoo dhan maanta waalidiintooda ma aysa joogin, aniga unbaa soomaali ka ahaa. marka ilmo badan oo soomaaliyana way dhigtaan iskuulka, kulliga qofkii yaqaano. akhyaare marka waa kaasa cadaankii madowgii ajaanibtii saasay u dhoobeen, ilmahooda ay dhiirigelinayaan, ilmihina aaday ugu farxayaan. marka waxaan rajeynayaa ina aad kasoo qayb gashaan, ilmihiina xafladihiina iyo baadhiyaashay leeyihin iyo tartamada leeyihin inaad kasoo qayb gashaan, waayo ilmihii niyadda u dhismayso. marka akhyaare waa kaasaa hadda maasha allah guruba maray tartamayaan. hadda first grade iyo fourth grade ugu horeeya, haddana kinda gaarana ku xigo cunuga igu jiro. saakasaa ugu imaano waaye ilaa iyo cunuga ugu dambe uu ka cayaara waa joogaynaa. waa kasaasa waxaan
just about ready to call these students out. kule soo waxankaas aad maqasheen maasha Allah kidin gaarankii hadda soo baxay ama bar units u taqaaniin marka waa kaas akhyaare aad ilmaha u farxayaan exciting way marka akhyaare waxyaabo badan ka faa'iideysiin ilmihii hatta hadii ilmihii soo raaci karin waxaan rajeynayaa inaan warar barar u soo dhiibteen ama biyo u soo dhiibteen caagad biyo ilmihii Soomaaliyeed dhan waa oomeen markii lagu wareego soo baxan qabo waa jiro laakiin istil cunugi markuu ororto waa oomaya markuu soo wareegabo waa oomaya marka biyahan la kala gaarsiin waayay biyaha ilmahayga bisaan soo qaatay kuma soo talagelin laakiin waa xawaan ka siiyay waayo cunugayga oo kala waaye marka akhyaarey hooyooyinka inta hordeysiin oo geed hurdada ku noqonaysiin fadlan ilmihiina xataa hadii soo raacinin dhar fiican oo ku ordo u soo xira kaba fiican u soo xira hadii kale tan waxa waaye ciyaalka waa kana kabihiya ka farfarmayaan dhar fiican ma wataan ilaa kuma dalabiyo ma wataan cunugi waa iska haraada marka hada akhyaarey ilmaha laga taxadaro waqtiga la galiyo ilmaha waqti wax kasto dhaca waqtiga. Thank you for coming, parents. We appreciate you being here today. The next thank you is third grade and kindergarten. Who is the leader of your classroom? hal qof oo Soomaali ma u jeedaa ana Soomaali hadana ilmaha fi sirif kuma raacno sometimes kuma raacno maxaa in ka qaldan Soomaaliyo maxay taasaan maxay tahay rafaadkan waa ilmihiina waqti ugu laadiin third grade if you can see the person on the microphone hal qof oo Soomaali iga tus. Awesome job. Here's the deal. hal qof oo Soomaaliya maanta oo waalida oo jooga ma leh markaas la leeyahay hadhowta ilmihayga maxay suuqa u galeen ilmihiina niyada ka jibiseen waxa dhacay waxa saafiir baysa u safiyin cadaanka Mexican cadaan madow hal qof oo Soomaaliya iga tus waxaa ya wajata who here knows what the PTO is? Everyone say والله shame on you Somalia shame on you. ما شاء الله ما شاء الله Abu Bakar, good job Abu Bakar, good job. naagta meesha joogta xataa thank you parents ay dhaaday waa mahadsantihiin wajida carsaas u safiyihiin Soomaali dhan ma arkaysid Mexican joogo madow joogo beebigayga waa kaas maasha Allah ilmaha Soomaaliyeed inaan ku qabto ma rabi laakiin ilmo badan oo Soomaaliya joogina wallahi aad ay u niyad jabsanayeen waayo waxay arkayaan cunugii kuwii Mexicaanka ee cadaankii madowga halkaas ay safan yihiin markay soo wareegan ba cunuga hooyadiisa calanka u taagaysa ama high five siinaysa ama aabihiisa la joogo mujada hal qof oo Soomaaliya ma ku arkaysid marka waa kaas akhyaaray dadka saas ina wajiyada ku qabta lama ogolo laakiin waa kaas waa ina tusaya hal qof oo Soomaali uma jeedis ilmaha Soomaalida wajiyada ma raba inaan ku qabto laakiin ilmo badan Soomaaliya buuxo xataa biyihii mina soo siinin kaba fiican mina u soo gelin dhar flexible mina soo gelin cunugi dhar gabadhi dhar ku ordi karto mina soo gelin waxa laga yaabaa qaarkin inuu ogeyn cunugin inuu tartan leeyahay maasha Allah cunugi waa kaas beebigayga waa kaas Abu Abu Bakar iyo Ilhaan waaye marka maasha Allah akhyaaray ilmaha waqti galiya nujada waa duubanayaan ilmahooda waqtigay siinayaan xasuus waaye kindergarten markuu orday xasuus waa cunugi xataa hadhow markii looga sheekeeyo aad ayuu u farxayaa marka akhyaaray ilmaha waqti galiya hadaa tad wallahi naag agteeda fadhiso waxaan ku dhahay cunug yariisa ugu weyn 3 jira 3 mataanoodna way haysataa waa soo jiidatay kaligeed haduu odagii shaqeynay ayadaa timaaday qaarka odagii ay shaqeynayna hatta qaarkood shaqada fasaxay ka soo qaateen aabayaashii fasaxay ka soo qaateen ilmihii marka ilmaheena dadka waa ka niyad jibsanay niyada ka jabtay akhyaaray ilmaha niyada laga jabin niyada loo dhiso laga qayb galo xafladooda laga qayb galo ani hadda 5th grade ay dhiman saakas u imaaday 9
ilaa iyo hadda waa joogaa because cunuga ugu dambeeya galaaska shanaad ay dhigataa gabadheeda waa sugayaa beebigeygana waa kaasaa ayada markay dhammayso ayadaa ugu dambeysa markay dhammayso gurigeyga aadaya wax kaa xanimi kara ilma yar hadda haysata soo qaada ilmahaga gaari kusoo riixo. So on the count of 3, I want you to make as much noise as possible. And she is towards the back right here waving. So everybody on the count of 3, make some noise. 1, 2, 3. Wonderful. All right, now students, if you can hear me, clap once. If you can hear me, clap twice. Now if you can hear me, hold up a 3. Because we have 3 quick rules today. Everybody say, I love rules. Parents, families, friends, teachers, you heard it here first. They love rules. Now the first rule of the day is safety. Everybody say safety first. Safety first. Today is a fun run and not a race, which means... hadda markii ayada ii dhamayso gabadheeda 5th grade marka ii dhamayso ayaan gurigeena aadaya saaka saana in imaano waaye haddana 1:30 waaye doorkii waaye 2:30 waaye marka hadeero markuu dhamaado tartiibtay ilmeyga ka xaysanaya wuxuuda dhan ilmo cunuga yarka caanihiisa cunugayga caanahooda waa soo qaatay tartiibteeda meeshaan ku sugaayay waa kana way baashaaloosa ayada markay dhamaysato ee xaroodo aan xarood anagana tartiibteen u baxayna marka ilmahaaga mawjada ilmahaaga waqtigaas siisatay kuwii kale kaama dayacmin waa soo qaadatay qabow haduu jira xataa jaakadaha u soo xiro hadii aad wadi karin xataa gaariga ku soo riixo hadii waxaas dhan dib kugu yihiin in odaga u sheeg waxa tirada ilmaha tartan ay leeyihiin aniga saana iga qaldan waa ku baryaa imaw waqti gali waqti laan ma jirto ilmaha damoora waqti galisid damoora ku guuleysanaysid qalbigooda waaye marka aqyaare waa intaas oo iga tala iyo tusaalo hadee maanta war leema wadayne la share garee familkaaga iyo asxaabtaada la share garee si ayagana uga faa'iidaan videogan quruxda badan leh marka aqyaare waxa waaye waqti badan aad u faraxsantahay gabadhayda ma sha Allah marka ma isugeen wax isdheysay hooyo way ka tagi doontaa isdheysay ma isugeenin marka waxaan dhahay kaama tagay waa ku sugaya hooyo sawixiisa u imaadid ilaa iyo subaxii anima isugeysaa hayaan ku dhahay waa ku sugaya of course waxaan ku dhahay busteena soo qaadanay ilmihii yarka markay iga daalin meesha u gogladaan ku dhahay beebigeyga kala waa kaasa kii kalena meesha ku seexsaday wax iga maqan malahan ku dhahay meeshaan ii baashaalooyaan hadhowta gurigan geysana waa u qabaysana cuntadooda siisana dig way ii seexanayaan marka qiyaaray war leema wadayna gurigeena iska aadayna ilmaha tartamadooda ha laga soo qayb galo xafladooda ha laga soo qayb galo wax ka celinaya ma jirto ilmo yar hadda haysata soo qaado haddii adiga xanuunsantahay odaga uwac odaga haddaad heli karin xataa soo jid isa soo dhibaan ku dhahay haddaad imaan karin warar barar ilmaha soo sii kaba fiican usoo xir dhar fiican oo flexible ee ku cayaaran usoo xir galaaskooda hadda ku noqonayaan marka maasha Allah laakiin intiiba la inkama hayo Soomaaliya biyo miina soo siinin dhar fiican miina usoo xirin kaba fiican miina soo xirin miina soo raacin dhiirigelin inkama haystaan sidee ilmaha hadhow qalbigeeda ugu guuleysanaysiin aqyaarey kacan ku dhahay hurdada ka toosa ma busta hoosteeda hurdada ku noqonaysa ilmaha iskuulka marka u dirsatiin iska daaya 3 saac iyo bar aan hadda tahay ee ahayd marka imaanayay haddana waa 8 saac iyo bar marka waxa waaye wax iga halaabo mana cunugayga caanihiisa iyo alaabtiisa soo qaatay wax iga halaabo mana ilmahaygana way ii faraxsan yihiin ayagoo faraxsan oo niyada u dhisan tahay aan gurigayga imaanaya wax ka halaysan haba yarati ma jirto laakiin hadaan maanta guriga iska jigla hurdada ku noqon lahaa hurdana wax ma iga tari lahay waxba macnaha hurdo maxaa hadda hurdo maxaan ka faa'iidaa male laakiin ilmahayga maanta ayagoo niyadooda u dhisan tahay hooyadooda garab taagneed ayaan maanta kasoo tagaya kuwii kaleetana jaakadooda u gashtay cunuga yarka jaakadiisa u gashtay gaarigiisa ku riixday meel yar busayra u dhigtay caanihiisa u qaatay wixiisa u qaatay wax ka halaabo male dhiirigelintaas ay ka qayb galeen ayagana walaalahooda wax oo hoga sacabinayaan marka aqyaarey waa ujeedin hadda waa kasa ilmihii dhan ayagoo wada faraxsan ay xaroodeen kulli waa wada faraxsan yihiin ilmihii Soomaalida meesha jooga dhan hooya u noqday marka aqyaarey marka waxaan rajeynayaa inay ilmihiina waqti soo gelisiin haddiina waqti u heenin dhiirigelin siiya biyo soo siiya kaba u soo xira hadda waa kaasa intaan video kala kulmina waxaan leenahay shaarta waa xageena subscribe-ta iyo share-ta iyo like-ta had naga baqilina mar walba saa nooga barteen family care waaye nabadey ayaa ayna leeyahay intaan video kulmi doona hadda waa kaasa barwaaqo iyo bashbash ayaa kaga tagay aniga iyo amiiradeyda waa baxnay gurigeeni aaway madaawo madheero soo ma jirto marka khayr waa kaasa hadda wixii talo iyo tusaalaha Snapchat-ka iyo TikTok-gayga iyo YouTube-kayga comment waa igu reebi kartiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.